xiisadii u dhaxaysay madaxweynaha mudxuleedkiisu u dhamaaday maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ayaa la sheegay in cirka isku soo shareertay waxaana mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed gaar ahaan kooxda ka eegdhow Laftagareen ay qorsheynayaan in ay markaasi weerar ay ku qaadaan guriga uu ka degan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wasiir Xasan Eelay weerarkaasi ayaa waxa loo xil saaray sida ay dadka goobtoogayaasha ay sheegayaan wasiirka haatan amniga u qaabilsan Laftagareen kaasi oo lagu magacaabo Cabdiqaadir waxaa la sheegay in la diyaariyay ciidamadii markaasi qorsheynayo weerarka inay ku qaadaan guriga wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya kaasi oo maalmo ka hor tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wasiirkan oo dadka deegaanka ay aad u taageersan yihiin iyo sidoo kale ciidamada ku sugan furimaha dagaalka ee gobolkaasi Baay ayaa la sheegay in xiisadooda ay haatan gaartay meeshii ugu adkayd odayaal dhaqan oo ku jiray waawaanta u dhaxaysa labada dhinac ayaa la sheegay inay ku guuldareysteen waxaana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee mudxuleedkiisu u dhamaaday uu sheegay inuu kaliya uu ku qancayo inuu magaaladaasi ka tago wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya hase yeeshee wasiir Xasan Eelay ayaa san wacad ku maray inuu magaaladaasi ka tagay doonin isla markaana uu yahay musharaxa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed haatan wixii ka dambeeya magaalada Baydhabo ay gali doonto xiisad adag oo u dhaxaysa mas'uuliyiinta mucaaradka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta mudxuleedkooda u dhamaaday ee uu hogaaminayo Cabdicasiis Laftagareen dhinacyada labadaasi dhinac waawaantooda ku jira ayaa la sheegayaa in xaaladda ay tahay mid aad u cakiran waxayna sheegeen in haddii arrintii sidan ay kusii socoto ay gaari doonto gacanka hadal maadaama labada dhinac ay ku adkaysanayaan in markaasi midba midka kale uu awood u sheeganayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ayaa xalay waxaa la sheegay in dadka deegaanka intooda badan ay qoryaha u soo qaateen isla markaana gurigiisa ay difaac ka galeen iyagoo markaasi ka difaacaya maleeshiyaadka uu hogaaminayo Cabdicasiis Laftagareen wararka qaar waxa ay sheegayaan in xaaladda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ay qarka u saaran tahay in dagaalo ay ka dhacaan maadaama Cabdicasiis Laftagareen ciidamadii Itoobiyaanka isku haleynayay ay runta u sheegeen isla markaana ay ku wargeliyeen inaysan difaaci doonin haddii laga soo awood roonaado haddii kalena uu faraha ka qaado wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya oo dadka deegaanka ay aad u taageersan yihiin Cabdicasiis Laftagareen oo muddo 3 sano sharci darro ku jooga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay dadka deegaankan ay ka tabanayeen dhibaatooyin fara badan ayaa haatan waxa uu markaasi isku taabtay sida dadka deegaanka ay sheegayaan wasiir ay aad u taageersan yihiin dadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaana xalay magaalada la sheegay in dadka deegaanka in ka badan 2,000 oo dadka deegaanka ay qaateen qoryahooda iyagoo wacad ku maray inay difaaci doonaan wasiir Xasan Eelay oo markaasi awood badan ku leh magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay sidoo kale duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay gaar ahaan dhanka deegaanka Daynunay waxa ku sugan ciidamo aad u tiro badan kuwaasi oo maalintii shalay ahayd furimaha dagaalka ka soo baxay kadib markii ay maqleen in gurigiisa la weerar rabo wasiirka xanaanada xoolaha ciidamadaasi waxa ka hortagay saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed waxayna u sheegeen in xaaladda ay dajiyaan isla markaana ay ku laabtaan furimahooda maadaama xaaladda ay tahay mid aad u degan dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda ayaa si xoogan waxay u taageersan yihiin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha taasi oo keentay in magaalada ay dareento cabsi aad u xoogan Laftagareen uu markaasi doonayo inuu qalqal siyaasadeed uu ka abuuro magaalada Baydhabo hase yeeshee wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa dhowr mar Laftagareen wuxuu isku dayay inuu ka celiyo magaalada Baydhabo waxayna u suurtagal weyday taasi oo keentay inuu ka dego magaalada Baydhabo maadaama ciidamada Itoobiya ay si weyn u taageersan yihiin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya koonfur galbeed ayaa haatan gashay qallaaso siyaasadeed tan iyo markii lagu dhawaaqay xisbigii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Laftagareen uu qayb ka noqday